tani waa hableebiska wiilka Masar. Khaliifow, intiina yaa khaliifka ah. Maxaa kugu kalif inaad noo soo safarto? Waxaan kaa doonayaa magan khaliifow. Waxaad magan gashay magangelyo, waxaad u leexatay meel la isku halayn karo. Fadhiiso nala hadal. Daawadahayga, weligaa ma maqashay qofka loo yaqaanay cadaaladda socota. maxaase ka taqaanaa qisooyinka Amiirul Mu'miniin Umar ibn al-Khattab. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago taariikh nololeedka Umar ibn al-Khattab oo kooban. fadlan hadday tahay marka kugu horeysa aad soo booqato soo dhawow, subscribe saar channelkan, muuqaalka like si saar. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. noloshiisii ka hor islaamka, Umar ibn al-Khattab wuxuu ku dhashay magaalada Makka qiyaastii sanadkii 584 ee miilaadiga. wuxuu ka tirsanaa qabiilka Quraysh. wuxuu ahaa nin xoog badan, akhriya, qora, weliba xeel dheer. intii ka horeysay islaamka wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu adkaa ee diidanaa dacwadda. waxaa la yiraahdaa maalin ayuu u baxay si uu u dilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam, laakiin intuu jidka ku sii jiray ayuu ogaaday in walaashiisa iyo saydigiisu ay islaameen. taas ayaa wadnihiisa bedeshay. wuxuu aaday guriga al-Arqam, halkaasoo uu akhriyay quraanka, qalbigiisuna ku furmay. isla markaas ayuu qaatay islaamka. taariikhdu waxay ahayd Umar baa muslim noqday, islaamka ayaa xoog yeeshtay. hoggaankiisa iyo khilaafadiisa. markuu Abuubakar radiyallahu anhu u dhintay, Umar baa noqday khaliifkii labaad ee muslimiinta. muddadii uu xilka hayay 10 sano wuxuu hormuud u noqday horumarka islaamka. dhulal badan ayaa la furay: Shaam, Masar, Ciraaq iyo Iiraan. wuxuu dhisay nidaam dawlo, diiwaangelinta ciidamada, maamulka cadaaladda, canshuur ururin iyo wadooyin ganacsi oo cusub. waxaa la dhihi jiray haddii neef geel ah lug uga jabto dhulka Ciraaq, mas'uuliyaddaas waxaa iska leh Umar. cadaaladiisa iyo alla kacabsigiisa. Umar wuxuu ahaa nin cadaalad iyo alla kacabsi badan. habeenkii wuu rondayn jiray isagoo dhagaysanaya dhibta dadkiisa. waxaa la sheegay maalin wuxuu arkay hooyo barooranaysa, carruurteedana ay gaajaysan yihiin. wuxuu soo qaaday qamadi, saliid iyo hilib si ay u karsadaan. markii la weydiiyey sababta uu asaga soo qaaday, wuxuu yidhi, ma rabo in Ilaahay uu i weydiiyo maalintii qiyaame maxaad uga aamustay ilmada ilmahan. geeridiisa, Umar radiyallahu anhu wuxuu dhintay isagoo salaada fajrka dukanayo. nin majuusi ah oo magaciisa la oran jiray Abu Lu'lu ayaa mindi ku dhuftay. ka hor geeridiisa, Umar wuxuu magacaabay guddi ka mid ah saxaabada, kuwaas oo dooranaya khaliifka cusub. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wuxuu ahaa halyey lagu xuso cadaalad, alla kacabsi, adkaysi iyo hoggaan dhab ah. cadaaladiisa ayaa weli tusaale u ah madaxda maanta nool. saaxiibayaal, muuqaalkeeni maanta halkaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. haddaad hore noola joogteen, like, share, comment. salaam.